dowladdiina waxay bilowday in iskuulada la wareegto isbitaalada la wareegto jidadka inay dhisto dowladdiina waxay bilowday mashruuc la yiraahdo isxilqaan oo daafuray madaxweynaheena oo lagu bilaabay in madxafkii maktabadii tiyaatarkii qaranka taalooyinkii ama xawataako ama dhagaxtuur ama sayid maxamed kulligood lagu bilaabay hadda ama la bilaabi doono in sanadkay barka aan 2 sano soo socota hadii ilaa yiraahdo lagu dhameystiro xoog iyo xoolo Soomaaliyeed qof walba hay'adaadi ku noqo yani waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata oo shaqaale rayada oo Mareykan jira oo Ingiriis jira oo Arab jira oo Nairobi jiifa oo soo shaqatiin waligood in uu qof $700 iska qaato soo Mareykan jiifa ama Europe jiifa ama Africa jiifa ama gurigiisa iska jiifa oo nimaanay wiil Soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo carruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagal ma aha aakhirad maxaan ku jawaabaynaa waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama beel lagu soo qoray ama kan email ay jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaarahan ka waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeenu ay bani aadam yihiin xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhalad ahayn ma xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeena iyo dadkeena gaboobay ay waayaan medical care-ka xataa bixiyaabii basic ah inay waayaan